بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سوري هذا ولا لها قارقة يا خير كجعل لما أنتي نحبابي وإن سلامي يا ميل كستو عالم كي قل سعتان إلهي بمهادس كله مركز وكان سعريي soo dhawaada. Maanta waxayni wada walaalaha qaaliga ah ee qisas laga arkay adkaarta subaxii iyo adkaarta galabkii, walaalo akhrisan jiray iyo markay ka tageen dhibaatooyin ku dhacay, sidoo kale walaalo adkaarahaas kusoo faa'iiday akhriskoodii, maasha allah ka faa'iidaysta marxalado kala duwan. Walaalaha qaaliga qisas laga arkay markaa ka faa'iidaysan walaalaha qaaliga ah like fara badanna ii saaray si walaalo badan u gaaro uga faa'iidaystaan maasha allah. وما شاء الله إيه الأذكار ونقضى ولا لها قارقة أنت ثانيا ندعود إذا ضيفافته مهمة أو ولا لها قارقة وأجر ذا ساكسوجيا لما أنت وإذن سلامة يا ولا لها قارقة يا خير كتشعل سودة لواذا أحبابي. أذكارت ولا لها قارقة ومهم جدا، وهي أذكارت صبحية أذكارت القلب كانوا وأذكارها ومهم سنة الله شوية ولا لها قارقة. nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiista kusoo aroortay adkaarta markuu ka sheekeynayo laga sheekeynayo waxa weeye inuu nabiga calayhi salaatu wasalaam uu yiraahdo qofka subaxii akhrista adkaartaas intuu ka galabaysana ilaahay uu ku xifdinaya, qofkii galabkii akhrista intuu ka subaxaysana ilaahay uu ku xifdinaya. mujida walaalaha qaariga marka maasha allah tabaaraka raxmaan ilaahay subxaana wa tacaala marka adkaarta akhrisato ricaayadiisa iyo xifdigiisa ayaa ku jirta walaalaha qaariga oo waa lagu ilaalinayaa cadowga midka arkaysid iyo midkaada arkaynba ilaahay subxaana wa tacaala wuu ka ilaalinayaa. xilliyada ugu fiican walaalaha qaariga in badanna waan kasoo hadlay walaalaha igu xiran walaalaha aan macnihi arag fiidiyoyadaas waxaa dhihi lahaa xilliyada ugu fiican haddaadan aqoonin waxa weeye qoraxdu intaysan macnihi dhicin ka hor galabkii marka casirka tukatid bacdal casr ama shanta galabnimo dadka afrika ila jooga ama wadamada kale aad joogsid adiga saacad markay ka dhiman tahay qoraxdu inay dhacdo inaad si akhrisato weeye walaalaha qaariga ah. subaxiina sidoo kale saas markaa subax u tukatid adkaartii bacda salaad marka akhrisato waxaa ku xijisaa adkaartii sabaaxda ku xiji walaalaha qaariga ah. tilmaantaasna walaalaha qaariga culimadu waxay kasoo qaataan aayadda dhahaysa wasabbix bixamdi rabbika qabla duluuci shamsi waqabla quruubiha. aayadda tasbiixdaas culimadu waxay yidhaahdaan adkaaraha ayaa laga hadlay adkaar sabax masaa marka xataa tasbiix way ku jirtaa adkaaraha. haddaa tasbiix u fasirano tasbiixdaas aad tasbiixsata way ku xifdinaysaa فهمت ولا قبل دلوع الشمس قبل غروب انت قرح دحين كهر انت قرح صوبع كهر ayaa lagu tilmaamay aayadaas walaalaha qaariga. marka xilliyadaas walaalaha qaariga fi candadu waxa laga yaabaa qoraxda soo baxda inay subaxii akhristaan dadna habeenkii markii qoraxda dhacdo maqribadii ay akhristaan ma aha walaalaha qaariga sida saxiixda waa sida walaalaha qaariga way ku xifdinaysaa waayo arag axaadiista xataa u fiirso hadaa aad akhrisatid hadaa akhrisatid galabkiiba wuu dhahayaa axaadiista hadaa akhrisato galabkii hadaa akhrisato waxay lagu xifdinayaa intaa macni ka subaxaysanayso hadaa subaxii akhrisato intaa ka galabaysanayso walaalaha qaariga marka xilliyadaas baa la rabaa walaalaha qaariga in lagu beego walaalaha qaariga soo dhawaada. sidoo kale adkaarta qofkii akhriya min ashaakiriin buu kamid yahay dadka ilaahay ku shukriya oo ilaahay u xamdinaya oo ku shukriya waayo subaxii markaa soo kacday adkaartii akhriso adkaaraha waxaa ku jira kuwa ilaahay inaad subaxaysato ugu mahad celinayso nimcada aad heshay inaad macni ilaahay waaga kuu bariya ugu mahad celinayso ay ku jirto walaalaha qaariga ah. marka adkaaraha iyo dikriga iyo qur'aankaas aad akhrinayso oo dhan waxay kamid yihiin min ashaakiriin bay kamid yihiin walaalaha qaariga ah. nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay man qaala qofkii yidhaahda xiina yusbax markuu subaxaysto allahuma asbaxa bii binicmatin faminka waxdaka laa shariika lah falaka alxamda walaka alshukr faqad adaa شكر يومه ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى محشي شكر ليله بقتي adkaarahaas walaalaha qaariga cajiibka iyo adkaaro kalo maasha allah ahba waxay kamid yihiin adkaarta aad ku qiray ilaahay subxaana ugu shukrinayso inuu ilaahay galab ku gaarsiiyey ilaahay subax ku gaarsiiyey ina ilaahay ugu mahad celinayso marka maasha allah ka faa'iidaysana walaalaha qaariga. sidoo kale walaalaha qaariga ah adkaartu maxay muhiim ku noqotay sidee bay muhiim u noqotay muxuu yahay cadowgan iyo waxaan aan laga baqayo ee adkaarta loo dadejinayo ee adkaarta loogu ordayo haddii ay maskaxdaada ku jirto ilaahay subxaana wa tacaala qur'aanka kariimka wuxuu ku leeyahay ina ashaydaana lakum caduwan fattakhiduu cadowa ayuu dhahaa ilaahay subxaana fattakhiduu caduwa ilaahay subxaana wa tacala shaydaanku cadow buu idin yahay
كيش عدو ولا لها قارقة شيطان كاس ولا لها قارقة عدو قنو إلهي القرآن الكريم كأنه هو الشيء عدو قاميل كستو كاسو كري كرا وقصواسين كرا وكل باتين كرا محشي وحول بقبو ولا لها قارقة كقول ذي كرا عكس بقول ميل كستو كاسو كري كرا مركا عدو قا وحا كل الدقال لم يسيوا أذكارت ولا لها قارقة تخيلوا هذا هدين لعل عدو الليذا هاي تسالي أهان عدو قا أيو chance وكوه هلو سو كما maxay sheegay diri karo cadow marka leedahay ayuu chance kugu helo soo kuma diri karo walaalaha qaar ayagu waxay raadinayaan chance adkaar la'aan aad tahay intaas walaalaha qaar waxay raadinayaan chance adkaar la'aan aad tahay chance ay kugu soo galaan chance adkaar la'aan ay tahay ay kugu dilaan bay raadinayaan ay kugu dhibaateeyaan kuwa waswaasiyada shaydaanku waxa weeye walaalaha qaar mid qariina xataa kula jira kuwa kale ee ka badan waxaasoo dhan waxa weeye macnaha shaqadooda waxay tahay inay ku waswaasiyaan ku leexiyaan ku shaki geliyaan cibaadada culays kaa geliyaan waxyaalihii wanaagsanaa ku caro geliyaan mar walba aad xanaaqsanaato mar walba dhibaatoonayso dhibaato ku jirto walaalaha qaaliga ah fahamtay walaalaha qaaliga ah marka waxaa naloo sheegay xataa markuu qofku خوفك iyo macnihi yuqawifu awliyaahu ilaahay subhanahu wa ta'ala shaydaanka markuu ka sheekeynay dadka awliyadooda hadhow cabsi gelina waxa ii qabo waxa ii sameey dad ku shaqeystaa xataa walaalaha qaaliga marka shaydaanku waxyaalo badan buu walaalaha qaaliga ah ilaahay cadow ka yeesho dhahay uu kugu sababi karaa marka inaad cadowgaas isaga celin lahayd digtooni inaad ku jirto inaad mar walba soo jeedo adkaarihi ilaashato difaacu waa intaas hubka haysatay waa kaas ilaan wixii hadii lagaaga hormaro khatar weeye walaalaha qaaliga marka haddaad dhahdin naga daa adkaarta markaan doono akhrisan haddaad dhahdin waa kugu dhacayaa markaas bartankaa taallaa yaa markaa dhimanaya oo macnihi dhibaatadu ay haleelaysa aday ku haleelaysaa ma fahamtay walaalaha qaaliga oo kale ilaahay subxaana watacaala qur'aanka kariimka wuxuu inoogu sheegay walaalaha qaaliga ah faqriga iyo dhibaatada iyo xumaanta iyo qurunka inuu shaydaankun amro walaalaha qaaliga ah الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء ولا إله سبحانه وتعالى فحشها يقرنك وحيالها سيحنت النبي من ماذا إسقدرك قرنك وحا قبيلك برايد الغشكين حمانت أوضن يا كان شيطان بعد بعض قوة ولا لا وحاس أوضن شيطان بسكري ميلو كاسو قلبا ماني بميلك هاجريا أذو بن أناك إسكقري أما مع بهالكيس إن قف نظيف النقطة إن أذو بلا أذكار إن قف نظيف النقطة وقلبيا ظاهر maxay gudaha iyo banaanka ba daahirka ah way yartaa walaalaha qaariga inaa noqoto ma fahanti bilaadanka waa iska qarin karaa laakiin ilaahay xagiisa qalbigaaga khatar buu ku jiraa marka adkaaruhu markaad macnihi ku dadaasho oo macnihi dadaasho shaydaanku wuu kaa daalay ma fahanti walaalaha qaariga shaydaanku markuu kaa daalo banaanka iyo gudaha ba nadiif baa ka noqonaysa walaalaha qaariga sidoo kale walaalaha qaariga ah adkaaraha muhiimka waxaa ka mid ah walaalaha qaariga ah markii adkaara sabax masaa kasoo sheekeyna laga tago adkaarta hurdada sidoo kale adkaarta musqusha hooyadiis waa musqusha sidoo kale adkaarta guriga markaa soo gelaysid hadaa banaanka ka tin guriga soo gelaysid guriga hadaa adkaarta akhrisan kula soo gelayaa sidoo kale adkaarta markaa baxaysa walaalaha qaariga wuu kugu dhibaateyn karaa dhibaato banaanka oo dhan deeshaa diintiiba buuxa gurigaagu markaad guri ehlu dikri tahay ama guriga macnihi gurigaagu xifdi yahay banaanka hadaa u baxda adkaarta hilmaanto ku dhamaatay banaanka way dhooban yihiin baa walaalaha qaariga adkaarta markaad banaanka u baxaysa adkaarta suuqa adkaarun maxay noom waa inay sheego hurdada kula seexanaya ma fahamtay marka adkaara ugu muhiimsan mid kamid walaalaha qaariga marka adkaarta guriga marka la soo galayo hadii aan kaga warramo adkaarta guriga marka la soo galayo walaalaha qaariga iyo cuntada marka la cunayo nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiid jaabir bin cabdullah uu ka wariyay nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ninku gurigiisa haduu galo fadakara allahu cinda dukhuulihi markuu gurigiisa galay haduu ilaahay xuso wa cinda dacaamihi markuu cuntada cunaya haduu ilaahay xuso qaala shaydaanku wuxuu leeyahay laa mabiita lakum walaa cashaa casho iyo meel hoyasho ah ma jirto meena caawa seexdo ma haysto meenan ka casheeyana ma haysto buu leeyahay banaanka uu hin la istaagay wuu oynaya walaalaha qaari لكن إذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله مركو صوغل يقولي هدوس كسوغل نحس وجد ولا لها قارئة محل قريبة عنتدي نما وبه الماء يقولي بالله صوغل أسقي باب للجوجي قال الشيطان قول هيا أدركتم البيت قريبان هلني وحلي هاي بيت بهلني وعشاء عشاء يو مينا كعشينا يمينا سيحنا بواهلنا
wajid walaalaha qaaliga marka guriga markii la soo galayo adkaaraha ugu muhiimsan bay kamid tahay waayo noloshii guriga dhexdiisa taalay oo dhan wuu kula sheer garaynaya walaalaha qaaliga ah soo dhawaada walaalaha qaaliga ilaahay subxaana watacaala hana xifdiyo adkaaraha lagu dadaalo walaalaha qaaliga ah naftayda iyo naftiinaba waa ku boorinay walaalaha qaaliga muhiimadaas ay adkaaru leeyihiin walaalaha qaaliga ah adkaarta subaxii galabkiina dadka waxa kula dardaarmi lahaa maanta taleefanaa la haystaa soo degsada ababka soo degsada ku xiro gambaleel oo waqtiga ha kuu sheego kadibna akhriso oo dhammaystir walaalaha qaaliga ah adkaaraha ka teginina walaalaha qaaliga ah xifdi weeye walaalaha qaaliga ah cadowga inaan la dagaalano wey ilaahay baan dhahay la dagaalama marka hadhow maxay daaweyntiisa cadowgaas way adag tahay laakiin adkaarta akhrido way fududahay walaalaha qaaliga adkaarta ina ilaahay ku shukriday ajaradii nimcooyin badan baa ka helaysaa ilaahay amarkiisa baa qaadatay maxay sheeg diintaadii baa ku dhaqantay maasha allah tabaaraka raxmaan haddana adigiiba adduunyadaadii aakhiradaadina ku anfacaysa walaalaha qaaliga nolol farxada ku noolaanaysa laakiin shaydaanku dadka wuu waswaasiyaa caro waswaas tiro badan dhibaatooyin badan buu qof dadka la kulansiiyaa marka soo dhawaada walaalaha qaaliga wax guda galaynaa qisaskii qisada ugu horreysa walaalaha qaaliga ah waxaa ka sheekeeya sheekhan wuxuu yidhaahday waxaan arkay buu dhahay oon ku kulanay masaajid nin mar walba takbiirta ku celceliya markaa salaadiisa u galnay buu asagii maanta dhi allahu akbar maanta wuu ku celcelinayaa buu dhahay salaadii markii sheekhii maxaan ka wadaa imaamkii uu xirtay salaadii asaga waswaas baa ku jira wuu ku celcelinayaa aniga waa la yaabay buu dhahay markaan la yaabay waxaan isdhay buu dhahay maxaa ku dhacay qofkan dabcan qofka cilmi buusan u lahayn waxaan isdhahay aad aqoon buusan u lahayn baa isdhahayay bal ka sax adiga ayaa isdhahayay buu dhahay markaasaan wuxuu dhahaa raadiyey markii aan salaadii ka baxnay baan raadiyey qofkii waanan helay qofkii wuxuu yidhaahday waan weydiiyey way maxay ku dhacday inaan ku celcelinaysay allahu akbartaada waa maqlaynay maxaa ugu celinaysay hal mar maxaa u dhihi weysay wuxuu dhahay shaydaan baa igu waswaasinayay qalbiga waxay soo gelaysay maada sixin xuruuftii ba'dii baa saan yeeshay maxaa sheegay kaafka kumaada dhawaaqin balaayu ii akhrinayaa buu dhahay waxaas oo dhan buu ii akhrinayaaye maxaan sameeyaa maxay sheegay buu ii akhrinayaa buu dhahay wuxuu yidhaahday maxay sheegay adiga iiga sheekay noloshaaduu dhahay aqoonta hadday tahay inaan kuu saxo aqoon ahaan ay kaa khaldantahay fadhi aqoon ahaan igama khaldana waxaan ahay nin sheekh oo daaci ah waxaan ahay buu dhahay maxay sheegay nin qur'aanka yaqaana warida qur'aana baa leeyahay sidoo kale waa ku fiicanahay salaadaha ayu waxde waa garanaysaan qof daaci ah boos ku yaala dee diinta heerad ka jooga wuxuu yidhaahday aniga boos fiican baa diinta ka jooga laakiin hal baan kuu sheegayaa buu dhahay arrinkan wuxuu haleelay hal maalin ah oo adkaarta subaxii aan ka mashquulay buu dhahay adkaarta subaxii markaan ka mashquulay waxaa dhacday shaydaanka inuu isoo weeraray waswaaskaana igu keenay buu dhahay si kasta waan yeelay waa daweyn waaye qur-aanka waan akhristay dawe markaasuu i haleelay buu dhahay ilaahay baan subxaana watacaala ijaabadii ka sugayaa waa imtixaan min allahi walaalaha qaaliga ah ilaahay subxaana watacaala baa ku imtixaamay walaalaha qaaliga ah sixirkan iyo xasadkan iyo waxaan arkaysiina shayaadiinta qaaday lagu leeyahay isha ilahaan culimaa cilaaj waxaasoo dhan walaalaha qaaliga ah waxa weeye imtixaan waa nooc min imtixaan markaad ilaahay adigu kugu fiirinayaa jarooyinkay ka mid yihiin walaalaha qaaliga marka ninkan waa ujeedaan miskiinka imtixaankaasaa ku dhacay walaalaha qaaliga wuxuu dhahay hal maalina oo aan ka mashquulay adkaarta isaa igu dhacay walaal marka adkaarta la fududaysto qisadaasa walaalaha qaaliga ah ugu qus qaadanaynaa قصدنا ولا لها قارجانين ساحر ودين السودان ولا شيء ما قينا سوشيال ميديا كود أركتين دماتي وهذا أركتين بأمرينيا نينكا ورئيس دير بالغ قاعدة سحر كي الشياطين تيسيلو أديك سنتريو انتي أهايين يترضوا سبحان الله إلهي سبحانه وتعالى بان كمان قدنا عالم كي تمنك أديك سيقودي عالم كي السحر كي بلايو دنبوك شيكي أديك مفاتين waxyaali ugu cajiibsanaa uu yiraahday aniga markaan ka baxay nimankaas oo aan ka farxashay arrinkooda oo isoo weerari jireen waxyaalaha uga badbaaday hadda idin sheego buu dhahay waa adkaarta subaxii iyo galabkii oo aan xifdiyay buu dhahay wajeedan walaalaha qaaliga ah awlawiyaat cibaadaad baa jira gabar walaalo oo igu xiran baa waxay dhahdaa faadima abay waxaas dhaha qoraxda intay soo bixin suuratul baqara akhris adkaarta gadaal baa u dhigtaa bay tiri gadaal baa adkaarta u dhigtaa suuratul baqara waa akhrisan kadhaa markaas laakiin adkaarta ka sii muhiimsan suuratul baqara muhiim weeye haddana adkaarta ka muhiimsan adoo salaadii ku taagan tahay sunno ma tukanaysaa salaad iyada ku taagan tahay sunno ma tukanaysaa walaalaha qaaliga waa saas oo kale waxay awliya way kala horeeyaan cibaadaadku way kala horeeyaan walaalaha qaaliga marka adkaarta akhriso kadibna qur'aankaaga wardigaaga akhriso adkaarta la hormariya culimada dhan weydiiya walaalaha qaaliga
qisadan walaalaha qaaliga ah iyadana wiil baa ka sheekay wiilka wuxuu yidhaahday waxaa igu dhacay shaydaanka ayaa wuxuu ila dagaalami jiray xoog wuxuu yidhaahday xoog inka uga feejignaadoy inaan ka feejignaado shaydaanku xoog iila dagaalami jiray dabcan cudurro ruuxi iyo waxyaalo qabatin abuu lahaa wiilka wuxuu yidhaahday waxyaalahaas markii aan daalay buu dhahay dee oo shaydaanku ila dagaalamayo oo aan xanuunsanay markaste wixii ugu muhiimsanaa aan ku dhegay waxay ahayd adkaaro sabaax masaa way caawiyey laakiin ilaahay subxaanahu watacaala amarkiisii baan qaatay halkaas anu ilaahay sooma dhihi shaydaanka cadow ka yeesha cadowgu inay cadow ka yeesha maskaxdayda waxaan ku seefgareeyey waxaan isoo weerarayaba inuu cadowgayga yahay soo waa la dagaalamaa saas uga feejignaadaa buu dhahay waan dadaalaa inta dadaali karo waan macnihii maxay sheegeen gaaray qaraarkaas inaysan isoo weerarin mar dambe maalin dambana aysan dhicin buu dhahay wuxuu dhahay waayadii hore 7 baan maalin hilmaan maalin dibdhaca kugu yimaad laakiin aakhirkii inaan xifdiyey buu dhahay waxay igu hogaamiyeen wuxuu ahaa buu dhahay inaan maskaxiyan aniga dhan iska dhaadhiciyey cadowgan soo weeraray ku dhibaataynaya cadow ka yeelso ilaahay ma dhihin anigana cadow baa ka yeelanay maalin dambe igama reynaysid sidaas wuxuu dhahay dhufays baa anigana ugu jiraa buu dhahay baadeen maasha allah tabaaraka raxmaan alxamdulilah adkaartii wuxiina kama tago hadaa waxay ii noqotay buu dhahay ilaahay fadligiisa biyo aan cabayo oo kale fudayd bay ii noqotay buu dhahay maasha allah marka adkaarta walaalaha qaariga qiimahaasay leedahay ka faa'iidaysa ujeeda wiilka soo loo dhibaatayn jiray ujeeda way adiga muu sheegay dhibaatada laakiin mar walba way dhibaatada tusaale ahaan dadka hadda mar walba xanuunsada ma aragteen hadda gabar qaraabanahay hadday faraxda gabadhaasi way dhici jirtay hadday xanaaqdo way dhici jirtay mar walba way soo war jirkeedu wuu iska daloolaa mafaatay walaalaha qaarkood waxay u dhahaan markay ila soo hadlaan faadmo magaalada anagoo marayna jimin kalaana soo raacay kuma soo raacayan hadda adkaarta daa'imto kuma soo raacay mana ku soo weerari karaan mana ku soo aadi karaa adkaar sabaax haddaad exactly waqtigeeda ku akhrisatay oo dhammaystirtay oo jirkaa ku masaxday yaqiinna qalbigana aad aaminsan tahay wax ku soo raacay ma jiraan wax ku soo weeranayana ma jiraan ma fahantay walaalaha qaariga qisadana walaalaha qaariga gabar baa ka sheekaysay gabadhan waxay tiraahday subax baa waxay tiraahday waxaan akhristay adkaartii xijaabkaygii baan akhristay aabahay iyo hooyaday baan ka ducaystay oo salaama hooye aaba way ii duceeyeen way ii istawdaceeyeen ilmaha oo kale walaalaha qaariga waa loo istawdaceeyaa ilmaha hadduu weyn yahay hadduu yar yahayba waalidiintu marka ilmaha kaa tegayaan istawdacikum allah istawdacika allah hadday wiil yahay istawdacikillah hadday gabar tahay استودعكم الله الذي لا تدع ودائعه هذه بدنهن إلهي النبي عليه الصلاة والسلام وحده هاي إلهي سبحانه وتعالى هذه شيء لو استودعيه حفظه إلهي وقوح في الدنيا سبحانه وتعالى مركا هذا قرقا كتجسد قرقا واستودع إلى قرقا يحفظه ويه محشي استودعكم استودعي بيتي استودع دعائي استودع إلهي ويديسو إلى دعاء ذا حيقرب دعاء مركا دعاء ستة وكله إلهي ودعاء ذا يحفظه دعاء ذا السي عمل ويه أو إلهي قد ضيعن ويه وقتها وحول بأستودعي سدتك وناكسن وكشتي دعوينك استودعيستين إن إلهي كأقبلي sidoo kale maxay sheegeen haday tahay caruurta haday tahay beedkii haday tahay wax walba ilaahay hada uga tagto ilaahay baa uga tagaa tirada guriga asoo furan ba ilaahay subxaanahu wa ta'aala hada uga tagtid wax ilaahay looga tagay ma wada yacmaan walaalaha qaariga marka gabadhan waxay leedahay waalidkay baa ii duceeyey bay tiri oo istawdaceeyey kadib waan baxay bay tiraahday waxaan aaday bay tiraahday iskuul iyo dugsi waxay tiraahday waxaan dhigan jiray meesha waxaan soo dhigan jiray dugsi iyo iskuul kadib maalintii waxaan soo mari jiray bay tiri computer baan soo mari jiray adiga waxbarasho badan bay gabadha isku dhigan jiray gabar weyn bay ahayd kadib waxa dhacday bay tiraahday casharadaydii markaan soo dhamaystay ayaan waxay tiri waxaan soo aaday meeshii baska laga raacay baski meeshii marka ay maxoogaa iga fogeydee waan soo tegay meel baa lagu sugayaa baska waxay tiri mudday baan taagnaa 20 daqiiqa kadib bas kale ii yimid bay tiraahday ilaahay qadarka waan daalay sibaan waxay tiraahday maxay shay u daalanaa bas kale yimid baskii kale aan iska raacay ninkii waxay tiraahday baska baa soo jahawareer xoogaa baa igu dhacay baskii kale aan iska raacay bay tiri baskii wuu tagay markuu albaabka furay wax u malaynaya baskii waa iska raacay markaan gudaha galay baa waxa arkay bay tiri inaysi kuraasti ahayn kuraasti baskaygi xoog baa u naxay bay tiri isla markii waqti ninkii tuu soo ag fariistay ninka gaarigooda midka kale wuxuu ugu yiri maxaagii u socotay kan waraysi wala gabar yar oo teenager oo iska dareemaysa waxay tiri afku ila soo galay isla markiiba waxaan ku ilaa jooji wuu diiday way tiri waan qayliye meeshii buu ku joogsaday
xasuusta bay tiraahday ducadii adkaarta subaxii aan soo akhristay iyo ducadii waalidka igu isoo duceeyeen nimankaasi meesha iga heleen iyo siday ahaayeen xataa markaa kasoo degtay kambaniga magacoodaan fiirshay dad sumcadoodu wanaagsanayn bay ahayd bay tiraahday ilaahay subxaana watacaala baa igu badbaadiyey walaalaha qaaliga ah ayadana ilaahay subxaana watacaala wuu ku badbaadiyey haddii ka hor baa axbaay waxaa xasuustaa gabar oo maxasha qaraabo aan nahay baa waxay aaday magaaladii aaday maalintii marka hurdadii ku daahday adkaartii maysa akhrisan markay tagtay walaalaha qaaliga ah bay magaalada markay tagtay gabadhii baa uur bay lahayd gabadhii wax meel bay ku dhacda baabuur waxbaa ku dhacay adiga way wax weyn ma gaara iyada laakiin ilmihii wuu ka dilmo walaalaha markay soo laabatay waxay dhegaysay maantay adkaar la-aanteydii baa ilmahayga iga dishay mawjeeda adkaarta way xifdin lahayde qadarka ilaahay xukunka ilaahay weeye laakiin adkaarta والله مهم وي والله له قارقة قف كان قصب إسلام قف أهل الذكر هرت وفهم يا ماشي لقى قصة والله له قارقة تذكي وناك سنة تسوي ترين محاماة السمي مح هدا وح سمي سو هدي وحكا خلدني هدا أذكاري كتكتي درين قونية بيليه والله له قارقة صدق والله له قارقة ويل بك شيكي ويل كوحي قصة يقول لي يابك بمنيد أذكارها أن كلام كل بأذكار صبحي قلب كهدا إذا لو ذا أقول هاي ما لين أيام كوري كبحي بوض هاي صبحي ما بحي شغال آذي سيدة يصدن دقيقة soo laabtay buu dhahay markii aan soo laabtay buu dhahay subaxii markaan soo laabtay aad baa u daalanaa buu dhahay waxaan is dhahday seexo wax yar seexo 8 habeenimo waa garanaysa walaal qisaq dhexe xataa way dhaaftay adiga 9kii xilliga qiyaamul leelka xilligaas ay u tahay dadka Afrika ka qadarka ilaahay xukunkiisa wuxuu dhahay marka ay alaarmiga ku xiro oo macni xilliga salaada ka cadid hurda ila tagtay xoogna u daalanaa hal saac iyo bar subaxnimo soo booday salaadii subax ayaan waxay yiraahday tukaday waxa is dhahayay macni kacmaana kicin salaadii subax maana kicin waxaa bilaabay inaan tukado salaadii waan soo qaleeyay hal saac iyo bar baan tukaday 8 ballan meel ku lahaa waan kacay waan isdiyaariyay waan tukaday salaadii subax waqtigii adkaarta subaxna wuu dhamaaday maadaama waqtigii uusan maxanii uu dhamaaday horey baan isaga sii socday qoraxdana ay soo baxday waqti adkaartana wuu sii sheegay wiilku wuxuu yiraahdaa qoraxda soo bixin weeye arinta waxay ahayd buu dhahay arin aan macnaheedu aan ka gudbay camal bay ahayd adkaartii ma akhrin karin sidiiba wuxuu dhahay isaga dhaafay shayaadiintii wuxuu yiraahday gurigeyga ayaa waxay noqotay 8 duhurnimo markii ahayd ayaan ku soo laabtay buu dhahay gurigeyga waxa dhacday buu dhahay casarkii markii ahayd inaa ciriiri dareemay casarkii wax yar ka hor 8 baan guriga ku soo laabtay buu dhahay duhurnimo duhurkii kadib xoogaa qalbigeyga murug walbahaar waxaan dareemay arrimo dareeno la yaab leh ciriiri qalbiyan aniga dhan waxaan dareemay wuxuu yiraahdaa xoogaa yaraan seexday buu dhahay duhurkii markii ahayd xoogaa yaraan seexday casarka la gaaray anoo dhahaya hurdo macnaheedu hurdo qarow hurdo jirkeyga culays xanuuno riyooyin cabsi neef qabatin ayaan dareemaya buu dhahaa waxyaabo adag oo cabsi waxyaalo niyadeyda kusoo dhacdhacayay riyooyin waxa is leeyahay anigoo weli seexan adiga wax qarow yar baa seexday buu dhahay aayad kursiga akhrisanay anigoo wuxuu dhahay macnaheedu sidii filim cabsi camal ii daaran yihiin ayaa hal mar waxaa maqlay buu dhahay dhegteyda midigta markaas ayaan wuxuu dhahay waxaa ka maqlay buu dhahay aadaankii casarka markaasaan waxaan dareemay laba qof camal inay labada dhinac iga taagan yihiin oo dhahaya qof uu taagan yahay dhinaca bidixda qofna dhinaca midigta uu leeyahay bal kaalay aan dhaqso macnaheedu ku cadaabnay aan dilnay aadaanka casarka yeeray casarka hadduu tukado oo ama maxanii xijaabkii adkaarta u akhristo annaga dhan waa dhammaanaynaa wuxuu dhahay labadoodu way isku jawaabayaan buu dhahaa wuxuu yiraahday maanan awoodin inaan dhax kala furo markaas xoogaa baan seexanay anoo dareemaya aadaankiina maqlaya ayaan hal mar booday buu dhahay kadibna waxaan dareemay maxaa qolkayga iftiinkiisii baa furtay aadaankiioo macnaheedu dhammaaday baan soo kacay salaadii baa way dhowdahay isla markiiba wuxuu yiraahday waxaan aaday buu dhahay aqankii baa dhacay isla markiiba waan baxay waxaan aaday salaadii kadibna salaadii markaa tagay walwalkii wuu sii batay muruga ciriiri nafsi waxaan dareemay aanu cirin kadib waxaan wuxuu yiraahday sameeyay inaan isla markii meeshii quraan ku akhristay marka salaada casar tukada 2 ragcadood baa ku daray quraan baan akhristay masaajidkii baa sii joogay adkaartii salaada adkaartii masaagan akhristay kadib wuxuu dhahay quraan akhris baan bilaabay in yar baa nafsiyan anigii baa kadib istaway murugadii walbahaarkii siyar iyo niyad jabkii ba iiga bixeen buu dhahay
والله ما أنتاس أذكرت أن كتجي هالكاس الصبح أذكرت معنيه وقتي والله لها قارق ويقرأ ما هذي بعيريري قاس ترى كور رمودا هاي هذه نرشيد أنسى أهم هاي ولا لها قارق دتك هو بإسكية شيء دانكو أنا أذكرت سمين إلهي ما سبحانه نرش لن عريري بكتشتا أي نرل وقف كاس ولي هاي لن عريري بكتشتا مركا ولا لها قارق أذكرت هلو قد دار أذكرت هلو قد دارو قبلها أو كري markay macduurka yihiin oo kale waa iska sii seexdaan haddii qofku shaqo uu lahayn oo kale iska sii seexda may walaalaha qale waxaa rabaa inta soo kacdo oo adkaarti akhrisato inaa kadibna maxaa hadaa seexanaysa aa seexato walaalaha qaaliga ah marka khayr iyo farxad baa idin rajeynaya inaa ka faa'iidaysateen baa rajeynaya dhammaantiin خير إياه فرحات بالمات إدي ودرجيني والله خارجة وحي أخلد نفتي الشيطان بك هذين إلهي سبحانه وتعالى هيدا مدافع وحي أنصحنا فمن الله وحرجيني يا فيديو قست صدق جاري إنه نقضوا ولا لبذن أوجارو أذكرت اللي قد دارو لبرتو أبوك أذكارها لسود جستو ما شاء الله تبارك أذكار السبع مثلا لما يستر ولا له قال أنت سنقولني لما يستر أذكارها أنا حتى واحد سوستا وقتي يظن رشيدة كمذا إن أنا أذكرت ولا له قارجة إن يربك آخرين ترى أنت أب مهم سدا محي شيء لبض آية سورة البقرة ودبيا آية الكرسي معوذتين أعوذ بكلمات الله تامات حسبي الله الذي يوحك آخرين ترى أعوذ بكلمات أيوه بسم الله الذي وحي يربك آخرين ترى والله قارئ واحد سوستا قلب كبا قند إساري ترى قند إساري ترتي أعوذ بالله مركز عسر كي مركي نقطة قندو أنا قدن عاجز هردو مثلت ولا قارئ مركز عاجز أنا قدر يمتر والله قارئ كدي واحد تكون أذكارت لن أنا لما يسرو حتى بقولك إن حش لا إله إلا لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هل حبو هذا كتبو ودريمي والله خارجة مركا وريجي دلال وحيالها ومهم سن أذكارت كنت أي صورة البقرة والله خارجة دتك الداعياش أنا وكسي حقتنا أنا وأنا قسي حقتنا دتك حمل يعني معك ترنو دتك وح الشيء والله خارجة ومحن dadka waxa khaldan sheegada sheegadunta wala shaqeynayaan laakiin annagana lama shaqeynayaan because wax wanaagsan baa